ورحمة الله وبركاته. هذا الله ولكن السود هذا جرنك وجرنك وانا سكراب هذا لك هذا شر هذا أصحابتنا ذاك ما أنت معنا هنا ما أنت معنا هنا قبل ولا شيء أو سومالية أو دبات هذا دت شعبنا كلا كلونتي معناها وايتها لواي أبيه إذا دلي وهو يجي إنسان سارن أبيه أي بافيه إنسان على نكي يخانو أيان روا وحيد تري هاللي شرقريو قف والبو أو ولا لا قف والبو قف كودو وينو جرسيا أوكي وين ولا الكيو بريسة هايو أديكا برنامج كاس dad ilahaan qabiilkiis qabiil fiican maahan oo tuubiyaan way ormoogsi yahay dad igu dhahaan dad ilahaan wicilaa tahay dhaliilo badan ah kala kulan laba qof horta adduunka saaran way ishelayaan hadduu adduunka joogo waxaa jeclaalaha gabadhiisa qari Jamaal Ibraahim oo dadka Soomaaliga joogtaa waxaa la dhahaa Jamaal Ibraahim ayaa la dhahaa gabarta ay baadgoobeysaa cid walba cidii taqaano aabahaas oo adiga dhalashadiisa ay tahay laakiin Eritrea oo nin islaam ah oo la yaqaan luqadda Soomaaliya gabartan aabaheeda kullee waa had idoo gabar qaangaar ah laakiin aabaha booskiis cid u buuxiso ma aysa arkays mana arki doonto aabahaas cid walba cidii taqaano waa inay garab ku siisaa ilaa shicibweyne ay waxay la kulmaysaa aabahaas wax fiican ma ahayn aabahaas Eritrea ahay aabahaada muslim ma ahayn dad badan waxyaalaha dhahay ay ahaa hadalada dadka ay wadkiiswaas saas darteed ay aabaheed u raadiyaysaa walaalkay adiga daawahayo hadad aabaheed aad aqoon bal video waan inuu aabaheed gaar ayaa laga yaabaa asxaabtaada macnaha friendskaada oo kamid yahay bal share garay okay sidoo dhaqsiyaha inuu soo raadiyo hamuun badan ku qabaa waligeed kuma arkin waa ku ciishooday jecelkaaga iyo naxariistaada u baahanahay سووا الخسيان بدنين الأصول رمضان الكريم ولما السؤال جوتان سود هذا رمضان الكريم قبلنا نحن نقول كل مية وبدينه كل بدكي أو خوف قدبا سيحة مجنية وعلى تها بمرهد لما يقانا بهاجا بهاجا لما يذكروا قبل إنه خسوت هذا بهاجا مسلم معهم بابا شيكون بدن oo qalbiga inuu sii gulmooyay aan wax faa'iido u lahayn ay dad badan la dul taagan yihiin damiirka ayaa sii waayay intaanay aamusnaato ayadoo ilmeynaysa ay timid gabadhan Soomaaliyeed gabadhan walaasheena dhibaatada ugu ballaaran ee haysto waxay tahay nolosheedu dhan inaysan aabeed arkin hooyadeedna ay ku tiri aabaha raadso markii aabo meel lagu waayay sababtoo hooyo iyo aabo markay isguursadeen ayaa khilaafka dhexdhacay qisada xanuunka badan iyo qaabkii la isku waayay ayada ayaa nooga sheekeynayso laakiin markuu baad mar labaad waxaa codsanayaa in dadka dulmiga laga daayo oo dadka ehelooda qaar ay maqan yihiin aan lagu diganin loo afxumaanin la aflagaadeeyin ama aan la ciilin waa gabar dhalinyara waa gabar mustaqbal leh waa gabar yar qurux badan waxay joogtaa meeshii nolosheeda ay baraaray barwaaqo ay gelineed ma aha in la ciilciilo inta gabadhan iyo sheekadeeda aan u gudbin annaga aan noqono kuwa dhibka kuwaas geystay gabadhan hila uga muujiyo oo muuqaalkan u sheergareeyo meelo badan u gaarsiiyo islamarkaana garab istaag saxa u sameeyo u duceeyo una soo qorabaayo garab qayb ka noqo labarada ayay nagala soo xiriiri kartaa haddii aad jeceshahay agoon iyo agoonba inaad ejtiiso mahad sanid abaa soo dhawo marka hore magacaaga iyo halka aad naga soo booqatay تبدأ الكيل يقول كنادر. مقعد المستر. يعيود المستر وحايا قري جمال إبراهيم محمد. أوكي مقعد المستر واد مغشين كله قبرت ولا شيء وحي عصت الواد مغشين أصحابتي ذو هذا الله هي ودد وحاتي قلبه ونأكثر هذا الله الشرقرية سيدد بدو وقارو قبرت أنا ولا شيء وريد إيكو قرتو. إخرى ما تحملت كيس كان وإيش كتير وكيس حنون بدن وحيجك أعباء مقيم. صح. أعباء مقعيس ولا مصر ماشي؟ جمال إبراهيم محمد. أبو جمال أنت هذا الوجود بين قابك ومقيم هاي حلق أويدي هذا يلا مش هذي. أنا تحلل ولا ورير يهوي. على مش هذي. أيوب شكرين. ما شاء الله. واقرتي. بل نغش كي أدي أعباء كل نلاش هذا مع بعض معك ولا يشكي خابك لا يشكي أبو إنه مقيم هاي أبلوه هاي نغش كي وحلي شكي ورتقول أمو المير
cardoon inuu baxay oo gobolka xalay kii ka tagay boosaaso kabacdi hooyay iyo is iskhilaafeen meesha ku kala tageen kadib hooyaha waxay ugu daba tagtay wadanka Yemen madaxeeda meesha uu soo qaadatay kabacdi wuxuu dhahaa u soo noqonaa gabadheeda koro dib dambana lama arkin ilaa hadda meesha ku maqan Yemen aan guri dambeys okay waad baqasheen gabartan aabaheed markiis ugu war dambeeyay Yemen ay micna hooyadiis iyo aabihiisa hooyadeed iyo aabaheeda aabaha Yemen iyo tagay hooyadu way ka daba tagtay way isdagaaleen wixii tir bataatum madaxii waana bartaan dhigtaa madaxeed ayuu soo sii gabarteedna wuxuu yiri adaan noolaha waan u imaanaya ilaa haddana jaan iyo cirib meel oo dhigay ayaa la laayahay adiga daawahayo waxaan ku dheeraa dad taqaan gabartan qolay nambarkeedni meesha ay ka sheegi doontaa inaad ku hagaajisid khayr Allah ku siiyo okay no sii wada guur oo fashil ma hayna fashil ma waa la ogaa guur oo la ogaa ahaa laakiin guur la ogaa ahaa waayahay aabaha iyo hooyada carruurta isku dhaleen adiga bismiya carruurta isku dhaleen anaa ka jiro hooyadii abi maanta ugu badan kaas waa kaliya ahayd waayahay marka qaabka aaba loo waayay bal maxaa lagu sheegay marka wallahi waxaa lagu waalidaayay nin bosaas isla joogay inay iskhilaafeen yar marka iskhilaafeen ninkaas u dhaadhaartay kabacdina saasoo wadanku ugu baxaya lagu dilina soo isla sidii walaad ku naqay ilaa hadda normal laga hayna arkana jeclaada meeqa sanayo aabaha maqan yahay sanad ahaan sida lagu sheegay maadaama noloshaan aad arkin kole hadda wiilkan wuxuu weydiiyey macnaha aabaha meeqa sanayo okay aabaheeda kole markuu ka tagay adiga 28 sano maqan amala video aan horma aad u dhageysan la qaab ahaan ayaan dareemay gabarta u yaraan aad 18 jir meelaas misaal 19 jir meelaas ay u dhacaysaa okay inta aan jiro waliga markin duruufaha ku haysto aabaha raadinayso ama aabaha u baadigooleyso maadaama ay gabar qurux badan la koriyay la soo barbaariyay family qaybkooda la joogto maxay raadinaysaa aabaha ku dhalina raadiso wallahi duruuf gooni oo haysato maanta waxaas ugu baahanahay weyn ee ma jiraan kaliya aabnimo iyo waalid ahaan inuu yahay بريتول مركا مستقبل يشوي أم في دونه المية ويدين دونا فكرة ده سأقول لسه كلي هذاني وحالة كعروض إلى فعية سيد قبل أصحاب تلاهي أبوه لقاطن وقتي وقبر تامسات أركتين وقبر عيشوتي دوينها بلشدين وقتها يقفك معناها أبيز أو معناها أنا لا أركن هذا لو حن أيلها مروال بن هذا لو معناها قلبي عن قرونين أي الله قبر تام أباها إني رئيسه كل هذا معنا باهي وينو أباها رت أي قبته مالي معناها وينو رت هيدا ويكسو دداشي وقال سوكري لكن باهيدا هاي سويتها ددوينها أي مروال بالنبر أي نبر كجوقيا هاي كجوقيا مركان قدام محيتها هاي أديو بعلها هاي أباها مسلم هين أباها أو أنتي وادتكي أصحابتي هاي وادتكي معناها إيدا إيو أو أديك الدعدي هاي وحساس وقلاي وادتكاس قبرتان wax ooyinta arkayska keen wadadkaas waxaan leeyahay qof walbo oo abiis iyo hooyadiis isla nooleen in micnaha aad dareesisaan in aabalaan oo yahay in micnaha aad juqaysaan wala fiican qalbiisan dhaawac aad gaarsiisaan bal ka waran hada gabartaan dhaawac loo geystay wallahi baan ku sheegmaa markaan aan dhageystay ahaantayda caloosh ayaa hortay kulay noo wada kamid ah dad ilahan qabiilkiis qabiil fiican ma ahan oo aad ku naqayna hada normal laga hayna arkana jeclaada ma qasamayo aabaha maqan ahaan inuu yahay بريتول مركا مستقبل يشوي أم في دونه المية ويدين دونا فكرة سأقول لسه كلي هذاني وحالة كعروض إلى فعية سيد قبل أصحاب تلاهي أبوه لقاطن وقتي فكرة سأقول لسه مركنا عبير هذه ما قلتي إلا أنت عبارة هذا اسمك إلهي والله قفوينا أوتجي ووري إلا هذا مجرو إلا رادي على كلي مرة لو ممكن سألت وين كعملان فيديو فيسبوك ليه كذا مضاد بدنا إيشر جرين فيسبوك لا بس في الكيسة يقولون يقدم من مراحل وردم من كمان ضد وجران لمبر بين يسوي عين وقوها هنا إلهين مشين بلاي وحبين بالكبر أنا خوف معنا إذا دبعت سوالت كده هذه عيادات فيديو فيسبوك أي صار يفتح عيادات بدن معناها وأنا وحبة وهين أبغى ضلوها ملهب لي ما دم بقى حلها سبحان الله دمع يا جبرت كقلي أي ربان إن معنا قاب سيدك كلا قابدر وحنقول له ولا القالي إن معنا تسكع الشوط وجبرتان وجبر ولا شهادة ودبعت يسن هذه هي سوالت كده لي هدأ التقانو
si ilaahay kula ogyahay waa inaad micna aad u xariiri aad barnaamijkeeda aad u raadisaa haddaad aad aqoonin micna inaad kelimad been aad u sheegtin waa laga qurux badan yahay ayaan ku leeyahay okay kamid waxay ahayd dad ilaa hadda ma jiro ila raadi aan dhahay keliya mar hore 2009 ugu dhaqsiyaa badan dhib ma lahan maanta ahayd maalintii balantaada ee lagu ballamiyey oo lagu talagalay baafintaada in la duubo waqtigeeda lagu timid duruufaha aan kala kulantay dadka marka inta aabaa raadinaysay maxaa kamid ah والله duruufaha kamid waxay ahayd dad idhahaan qabiilkiisa qabiil fiican maahan oo tuubiyaan way ormoonkiisa yahay dad igu dhahaan dad idhahaan wicila tahay dhaliilo badan ah kala kulan dhib ma lahan waxaa waaye waxaad ahayd ma noqonaysid dhibna ma lahan iska adkayso aabbahaan haddii uu muuqaalkan u daawado wallahi billah been ku sheeg ma waa micnaha gabarta xanuun fara badan ayay dareemaysaa dahlaas waxaa u keenay dadweynaha soomaalideena koley dad cishoohay kuma jiro dad wanaagsan way jiraan laakiin dadka qaarkood ma cishoodaan kulley wuu aqoonsan doonaa aabbaha soomaaliyu ka ahaa soomaali walaahi soomaali ma ahayno etoobiyaan oromo kasii ahaa hooyaa soomaaliya qabiilka abgaan ay ka tahay laakiin aabbaha oromo ah waa gartay aabbaha marka deegaankiisa u laabtay deegaankiisa inuu u laabtay in kale war ma kaha laakiin yamanaa lagu wari dambis ay hob inuu u dhaqad laakiin hooyo haddii ay nooshahay ma kuu sheegtay dad kale oo aabba laga yaqiinay dad kale aabba laga yaqiin waxay iga sheegtay hooyadiis oo saaran lahay iyo walaashiisa saabrin iyo waxaas ugu sheegtay cid kale ma ka garanayn maxaa loo raadin waayay wax badan ma isla nooleen ma nolosh wax badan isla qaadan anu markaa dhasho hore ka kala tagay oo dagaal iyo rabjaas oo kala gashay saasaa dhalis markiina familkiisii waxba aana lahayn waad aragtaan qisadaas ayaan maanta hayay waa qisa xanuun badan asxaabteeda waxaan ka codsahaa gabartan walaasheena codsigeeda waa inaad fulisaan waa in qof walbo qofkii asxaabtiisa uu u sheergareeyaa haddii aad la kulanto aabaheeda gabartan koley nambarkeeda iyo waxeeda afkeeda koley ayay ka sheegtay wax walbo koley waxaan leeyahay inaad caawiso ilaahay dartiis aad u caawiso haddaad video aad aragteen ilaahay dartiis u sheergareey sidii gabartaas aabaheeda oo dhibaataysan aabaheed u hesho isaaraddan dambe xiise leh adoo caafimaad qabteen oo caafimaad qaba waxaan leeyahay barnaamijka maanta ahay intaas oo ahay khayarteeda